السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أد نغو برتين بوا سومالي بنادر تي في او آلا با إذن كسو جيدي سو دون وداك markaan hore u galno hordhacayni waxaa marti noogu ah stuudiyahan Somali Banaadir TV Umar Sharif oo ah aqoonyahan siyaasi ah kana shaqeeya dalkan Ingiriiska muddo 20 sanadood wasaaradda arrimaha gudaha ee home office-kana iyo waxyaalaha kale ee jaaliyadda reer Banaadir gaar ahaan community-yaasha reer Baraawe haddana ku dhex jira arrimaha bulshada ee dawladdan Ingiriiska marka hore waxaan rabaa inaan idin baro Umar شريف فضل عمر شريف كسو دواو صومالي بنادر تي في او آلابا خبطها سبتي كسبا سي دوداغا وحان ربا دادكو دغيسانا انا سو شيكتو بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمان دادكي دغيساناي runtii adigana xasan waralkeyga aad iyo aad mahadsan tahay runtii sida aad isharafteen oo maanta aan ka qayb galay aan istindiiha ee Somali Banaadir TV-ga aad iyo aad ayaad ku mahadsan tahay runtii soo dhaweynta أضامن سؤال شكوى ذا قويدنا عمر خوميدا بنادرية انتي كدجان كوديين انتينا كل إجينا إسلامها حسنو سؤال شتدين كعجبال هرتا قومية بنادر وقومية تاريخ له يحضروا أولي ميدان يعني حضارة ذا يعني وتاريخ باقي قرن تاريخ لما أنا لما تتركري قومية بنادر حدان أنا سيدا قبالي إيه أحو حيتجاني يعني محلا جوالada koonfurta Soomaaliya markaasi dhawr sheekh ilaa raski yambon runtii waxa la sheegay dadka banaadiriga halkay magaalada Muqdisho ka degan yihiin islaada magaalada Muqdisho horta magaalada Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya banaadiriga reer xamariga waxay degaan xaafadaha oo dhan meel kasto oo xaafada kamid ah Soomaaliya way degaan hadday dad aad u badan yihiin reer Banaadir lagu tilmaamay maxaa lagu tilmaamay inay yihiin qoomiyadda ugu yar ee minority-ga intaasi qaladka yar ka timid markii ay marxaladii aan soo marnay siyaasadda Soomaaliya 25 sano burburka Soomaaliya kadib markii la isku yimid ayaa waxa yani ay go'aansadeen ba ina anaga ma aragtay ay minority naga dhigaan why because anaga minority money taana markii laga dhigay 4.5 ayaa siyaasadii ka bedelmay meesha si ay aan noqon yani anaga waxaan nahay dad majority money minority wax ma noo sheegi kartaa taariikhda reer Banaadir taariikhda reer Banaadir horta waa taariikh qoto dheer leh markasta taariikhdaasi markaa fiirisid waxa reer Banaadiriga ma aragtay taariikhda xagga siyaasadda dhan kastaba ay ka galaan siba hadii aan dib u laabano yani waqtiyadii hore ee siyaasadda Soomaaliya reer Banaadir door weyn baa ka qaatay meesha siyaasadda SYL for example hadaan ka soo qaadano for example SYL waxa ku jira yani afar kamid ah 13 waxay ahaayeen reer Banaadir lix kamid ah sorry waxay ahaayeen reer Banaadir ahaayeen ayaga ayaa lahaa aas-aaska SYL iyo يعني كينيستا يعني محل قرن Soomaali oo loo dhanyahay waa sida reer Banaadir shaqooyin ka ay qaban jireen waagaasi lagu yaqiinay wax ma loo sheegi kartaa shaqooyinkooda horta reer Banaadir sidaan ku sheegay civilizationkii oo shaqada la yaqaano oo xirfada ay ku hayaan maxalla meel kasta gobolada ha noqdaan ama maxalla meesha ay deegaankooda xirfado waxay sameeyaan yani dharay tolaan xarqaamo alindi markaasi sida koofiya baraabe iyo dharka ay tolaan maaragtay waxyaalo badan ay sameeyaan markaasi iyo tumaal waxay sameeyaan dahab maxaa is leedahay haddii reer Banaadir la'aantooda maadaama ay soo gelin jireen dakhli aad u weyn ee dalka magaalada Muqdisho dakhligaasina ka imaan jirtay dadka Soomaalidu ay aad iyo aad ugu hadli jireen arrimahan oo maxaa lahaa taxida la dhiibay cashuurta la dhiibi jiray hadeertaan maxaa dhibaato isdhiileeda ku yimid maanta dakhligaasi markii dadkii hore Banaadirigi shaqeyn jiray miyaa laga heli jiray cashuuraadkaasi mise waxa isleedahay dawladda Soomaaliya ayaa lacagta laga heli jiray soo dhiibi jirtay isleedahay
horta dhibaatada ka jirto meesha waxaa waaye Soomaaliya dadka banaadiriga meel kasta ha joogaan ama yani xagga siyaasadda ama waxbarashada ama dhanka yani ilbaxnimada Soomaaliyeed ayaa qoto dheer ay ku jireen dhankaasi dhaqaalaha Soomaalida dhan iyaga ayay keeni jireen run ahaantii markii la fiiriyo gaar ahaan caasimada Soomaaliya runtii marka qoto dheer bay ku leeyihiin yani financialka maxaa la qaranka Soomaaliya aad iyo aad mahadsan tahay Cumar Shariif aan waraysi ka qaadaynay wali waxaan ugu daraa haddii mid aad rabtay inaan kugu daro taariikhdii haddaa dib u noqono yani 1950 ilaa 1980 all financial institution bank and financial minister waxaa gacanta ku haayeen guud ahaan yani Gibilcad taas Gibilcad 1980 ayaa la wareegay xilkii markii laga qaaday iyaga in 10 years macnaheedu lacagtii Soomaaliya ee bangi ku tiirsan ayaa la furay sida awgeed saas ayaa ku dhamaaday oo endigi civil war ama saar u taqaan ba dagaalka sokeeye ee Soomaaliya oo rejiimkiisa bare laga saaray marka intaas ay ku baabacday dhaqaalihii oo dadkii markii laga qaaday la wareegay arintaas ay ku dhacday oo siyaasaddiisa u tahay hadda marxaladda aan marin ilaa meesha aan joogno maxaa is leedahay hadda marxaladaasi in waxa loo baahay laga gudbo oo ma loo gudbo marxalad oo maanta wanaagna u noqon kara ummadda Soomaaliyeed maxaa is leedahay wanaagaas lagu soo celin karaa aniga fikradeyda siiba aan ku dhex jiro muddo qoto dheer baan ku jiraa siyaasaddan waxaan u arkaa in yani dadka Gibilcadka ha noqda banaadiri kuwa degan ama meelaha kale basiim anto xeebaha ilaa Raskiyamboni dadka degan ama gobolada ee maxalla sida Qoryoole iyo meelahaas maxalla Markay iyo Baraare kulligooda ma aragtay yani waxa loo baahan yahay inay yani siyaasadeed ay qaataan ma aragtay sidii oo ay yani ay mideeyaan siyaasadda iyo Soomaalida walaalaheena kale markii ay isku garab noqdaan waxa dhici kartaa inay meeshaas ka soo baxdo yani maxalla dawlad oo real la isku raacay dhamaan marka haddii meesha goobta ay ka maqan yihiin dadka reer banaadir umaleymaayo inay yani xaysigii 2016 ay gaari karaan dadka laaziman inay ay ku laabtaan sidii siyaasadii hore oo reer xamariga civilizationka ay ahaayeen oo siyaasadana qoto dheer ay ku jireen ilbaxnimadana ay yaqaaneen marka waxa waaye xasan aad iyo aad ku mahadsantahay runtii adiga shucuurteeda kana kicisi waa loo baahan yahay in dadka Gibilcad ma aragtay meel kasta ay joogaan ba maaragtay inay sidaas oo kale ay kacaan oo yani dawladda ay dhisaan iyo walaalaha Soomaaliyeed ma arkino inay isgarab qabsadaan oo united noqdaan markaas ayaa dawladda oo runtii xigsigii la sugayo 2016 ay kasoo bixitay dawladdaas waa kasnay marka hadartaan waxaan su'aasha ugu dambeysay weydiin lahaa waad noo sheegtay in higsiga 2016 loo baahan yahay in la arko dadkii reer banaadir inay soo kacaan oo ay wax un ka qaataan higsiga 2016 ilaa haddana wax oo afaaf lagu arkaayo inuu soo dhaqaaqaasi ma jireen mar hadda wax ma isku dayaan dadka banaadiriga inay soo kacaan mise waxay sugayaan in la yiraahdo soo kaca wal xasano su'aasha aad ay u fiicantahay waa su'aal fiican waa runtii reer banaadiriga yani saad umaleynaysa ma aha inay yani ay seexdeen dhamaantooda kuwa siyaasiyiinta la yaqaano diyaar bay u yihiin mar hore hadda waxay rabaan weli inay yani xoog ay saaraan dhalinyaradii dhan oo reer banaadiriga in la kiciyo ma aragtay sidii xigsigaas 2016 xisbiyo badan ba ayaa la furay dhanka banaadiriga ha noqdo maxalla UK wadankan Ingiriiska iyo America iyo Canada iyo Scandinavianka meel allaale meeshii ay degan yihiin maxalla dadka Soomaaliyeed gaar ahaan qoomiyadda banaadiriga xisbiyo ay diyaarinayeen xigsigii 2016 marka lama seexanin waxaan jeclaan lahaa weliba haddii ay jirto marka dhalinyaro kale na maqlooy oo maxalla TV-gan Soomaali banaadir TV-ga inay yani waano ka qaataan ma aragtay sidii markii xigsiga 2016 ay ku biiraan xisbiyada banaadiriga oo si ma aragtay ay ku gaaraan macnaheedu meel xeel sare ah aad iyo aad waad mahadsan tahay haddana wareysigaana waxaan wareysanay waa Cumar Shariif oo aan leeyahay waa mahadsan tahay soo dhawow waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.